waxaa si gaar ah u salaamayaa senator aadan inooga yimi dalka Kenya iyo walaalkeen Cabdiraxmaan beriyaanu golaha wakiilada nimi wafdigii ugu horreeyay inooga yimi baarlamaanka Kenya 2006 isaga hogaaminayay oo keenay intii ka dambeysayna Somaliland si buuxda buu la shaqeynayay ima kana weli uu shaqeynayaa marka hawl badan uu la qabtay Somaliland markii hore waxaan u hadlaqayaa Sonsaf iyo ciddii la qabanqaabisay ama maalgelisay aqoon isweydaarsigan sida ay sheegeenna ma noqon doono kii ugu dambeeyay waxaan filayaa inaa insha Allah wada ka faa'iideysan doontaan fursadahaas anagu berigii aan nimi golaha wakiilada ana la soo doortay Somaliland way kortay fursadaha ma jirin cid wax loo sheegtay ma jirin حزاب لا ترى سميتري وبرلمان كمان لما جرني لكن ما أنت institutionist في بقى تأكوري حسبية دي بقى يدينا تلنا إياه وهي أغانتي سوق بين إياه صنصف بعدين سوق بين إياه وانا كيا ده قولي وكيل ده بتشوجا أو يجي يقول ما ضحي هذا القرار كتشوجا وأصله ويارجع بدن بعض اللي يسوق بدونه هناك في الستان قالها وكيل هذا وأصله هاي دائما إذن حلكي قالها وكيل هذا لو ريجي حلك أصلنا وحده كوريجي ما أنتي اللي يكون واقعين مدنيالتي قولي خلينا ما تفكر بعض xubinnimadii baarlamaanka maalintii lagu dhawaaqay idinka ayuu iyagana ka dhamaaday marka saaxiibadaydii horena waan sii macasalaameynaya golihii wakiilada qolada cusubna waan soo dhaweynaya 82 mudane dee waynu tartamno dastuurku waxay ku tartameen axzaab laakiin mudanayaal qaranna waa tihiin axzaabna waa kasoo kala jeedaan وهي قرن قرن ما هو شقين إنسان مركز حزبيتين ده حزبيتين على شقين إنسان وهم أنا سفي عن رجع هالكن ده صوت ورتينا بدن كودو أما دمان تود مفهومتي ده ورجع قويانا لكن وحكوا شقين دونتان بكمت كوجو ميمسين ورتوا دستورك إن هذا أخردان بان كأصنعه وأيو حير حستولا سميه وهو يوا دستور مركا حير كستوين وافقسيه هاي مركا هو دستور برنسبل كواد حير كأصنعه دونتان وحلقوا أخرية دستور كموافقسيه هاي قضب كلامات اللي أخرية يعني هو إسلام كدين إسلام موافقسيه labada shuruudood ayaa ku xidhan xeer kasta in sameeyaan marka mudanayaal shaqada baarlamaanka dawaydu iman doontaan si practical ay u qaban doontaan laakiin saddex qodob baa ugu muhiimsan mid waxa weeye dee waa la soo doortay wakiil by definition golaha wakiiladu waxa weeye قراه مثلية شعبك دستور كما قرنته وحبنا الصوت دورتي ومثلية شعبك دستور كساس ودفعن قرينا طلبات الحوي دي وحدين حير ديتشين وغضب كلابات وحلا يدك واجبات دي حيرك دلك إنا أصلا ما يصان حيرك وحكى له قالوا حق لي هاي إنه الضوء قال ما حرارك يوريجري حرارك مركز الله صحيو وحكى صبحا جابس
marka goluhu waxa uu leeyahay inuu xeer kasta haddii dee gaabis ka soo baxay inay dub eegaan oo soo jeediyaan kaabis iyo wax ka bedel xaq baana u leeyihiin xeer kasta mid la ansaxsan iyo mid aan ansaxsanaynba oo eegi kartaan dub marka waajibka saddexaad golo kasta oo baarlamaan kasta laga filayo dunida maha idinkoo qura waxa weeye the check and balance ama dabagalka xukuumadda oo inaad ku controlshaan xukuumadda hawsha ay qabato wada shaqayntu waa waajib iyo golayaasha qaranka wasiirada waa yeeli kartaan waxaa weydiin kartaan xukuumaddu dee hawlaha idiin keentana inaad hubisaan baa waajiba markaa ta labaad waxa weeye ta saddexaadna waa intaa dabagalka dee xukuumadda ama check and balance-ka sida baarlamaan kasta oo dunida ay waajib ugu tahay waayo idinkaa dadkii matelaya xeerka inaad hubisaan miisaaniyadda hubisaan shaqada xukuumadda hubisaan waa waajibkii laidin soo doortay kaasi waan idin rajaynayaa muddadaa dee muddaxileedkiina inaad shaqo wanaagsan qabataan waana idin ducaynaynaa waana idinla shaqaynaynaa aada iyo aad baa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu